بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر وكمل سياسيين الصوماليلان أيام مانتا بارشنتي قرام نمسوعة قدكتي مدارك عالمي جاهي مقالة بربراز تمركزين أي كسور دويين مسؤولين كترسن حكومة الصوماليلان سيدا قدومية كحيجين كبرلمانكا يسيدو كلا وزير كترسن حكومة الصوماليلان سيدا وزير كوزارة كلوميسك الصوماليلان مسؤولين تقبل كي دقمة بربراي يسيدو كلا دوينة كروات أطير بدن بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أيام مركي وكسور دقي ديارة إثيوبيا إيرلاين ويدو كانت مدارك مقالة بربرا ayaa waxa uu soo caga dhigtay isagoo geereysan isagoo midmid u gacan qaaday dadweynihii ku soo dhaweeyay gegida diyaaradaha ee magaalada Berbera balse waxay arintan sida xoog leh u soo jeedatay dadweynaha soo dhaweynaya professorka isla markaana geero gelisay waxa uu professorku la jeestay sujuud isla markaasina uu dhunkaday dhulkiisa hooyo oo yimika yimay muddo laga joogo ilaa 22 sanadood ismadaarka magaalada Berbera ayaa waxa halkaasi ay ku soo wareegeen diyaaradda Ultimate Air oo iyadoo kamid ah diyaaradaha u kala goosho gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba wadamada Jaarka waxaana lagu wadaa in si weyn loogu soo dhaweyn doono madaarka caasimadda Hargeysa ee Cigaal International Airport Professor Ahmed Ismail Samatar ayaa waxa uu kamid yahay aqoon-yahanada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ku dhaqan wadamada dibadiisa gaar ahaan wadanka Mareykanka waxaana lagu wadaa inuu ku sugnaan doono dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana uu si weyn ula shaqeyn doono xukuumaddiisa iyo shacabka Soomaaliland iyo waliba wadankan uu dhashay ee Soomaaliland Muxtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera